kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa runta TV qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa kamid noqon doona daawadayaal kuraasta qaar oo waqtiga kan lagu laaban doono iyo caqabada aad u adag oo ka jira doorashada Soomaaliya maamulka hawada Soomaaliya oo markan u muuqanaysa in shirkad gaar ah lagu wareejinayo lafta gareen iyo Axmed Qoorqoor oo qodobada qaar ka soo horjeestay iyo sidoo kale saraakiishii ka dambeysay weerarkii madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan xafiiska ra'iisul wasaaraha oo magacyadooda la shaaciyay ayaan daawadayaal warkeena idinku soo gudbin doonaa qodobadaasi qodobo kale ayaad warka janaalkeena runta wararka ku daawan doontaan hadaba daawada janaalkeena subscribe noo saar si lamid ah wararkeena like share commentiga noogu dadaala aan ku bilaawo qodobka ugu horeeya ee warka hogaamiyaasha galmudug iyo sidoo kale koonfur galbeed Soomaaliya lafta gareen iyo Axmed Cabdikaari Qoorqoor ayaa gabi ahaanba diidan laba qodob oo la isku raaci laayay qaar kamid ah madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa shalayta si rasmi ah u diiday shirka golaha wada tashiga qaran ee ka socda Muqdisho inay isku raacaan amniga dalka in lagu wareejiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble sida ay ogaatay warbaahinta runta wararka ayaa waxa si cad u muuqanaysa in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu doonayay in uu aad ula wareego awoodda guud ee amniga dalka taasi oo ay si gaar ah uga soo horjeedaan Axmed Cabdikaari Qoorqoor iyo Cabdicasiis lafta gareen qoraal ay talaadadii soo saareen midowga musharaxiinta ayaa waxaa ku jiray in laba qodob oo la xiriira amniga waxaana lagu yiri waxaa muhiim ah in gabi ahaanba lagu wareejiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo golihiisa wasiirada inkastoo taasi caqabad weyn ay ku tahay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo haddana madaxda maamul goboleedyada koonfur galbeed iyo galmudug ayaa waxay yihiin kuwa si cad uga soo horjeeda isla markaana aan ku qanacsanayn in amniga doorashada iyo sidoo kale amniga guud ee dalka Maxamed Farmaajo laga wareejiyo loona wareejiyo Maxamed Xuseen Rooble taasi ayaa waxay noqotay caqabada ugu weyn ee shirka waqtiga kan qaadanaya iyadoona sidoo kalena ay hadda ay qodobo dhowr ah ay dalbanayaan midowga musharaxiinta ee u muuqanayaan in gabi ahaanba odayaasha soo xulaya ergooyinka ay noqdaan 135 oday oo dhaqameed kuwaasina oo horey loo magacaabay waxaana guddigu ay horey u sheegeen in talaabo kasta ay noqon doonto mid xal lagu raadinayo hase ahaatee weli xaaladaha adag ee waqtiga kan shirka ka jira ayaa waxay kuwa aad u adag inkastoo hogaamiyaasha Puntland, Jubbaland iyo Hirshabelle ay hadda isku mowqif yihiin hase ahaatee Axmed Cabdikaari Qoorqoor iyo Cabdicasiis lafta gareen ayaa waxay yihiin kuwa aan ku qanacsanayn waqtiga kan wax waliba oo looga soo horjeeda Farmaajo in shirkaasi lagu saxiixo kooxda Farmaajo maadaama ay kamid yihiin lafta gareen iyo sidoo kale Axmed Cabdikaari Qoorqoor ayaa haddana waxay u muuqanayaan in caqabad weyn ay ku noqonayaan shirka ka soconaya Muqdisho ayaa lagu sugayay in maalintii shalayto war-saxaafadeed uu ka soo baxo hase ahaatee dib u dhac weyn ayuu ku yimid maadaama shirkaasi qodobada qaar la isku fahmi laayahay Axmed Cabdikaari Qoorqoor iyo Cabdicasiis lafta gareen ayaa lacag fara badan waqtiga kan waxay ka qaadanayaan madaxtooyada Soomaaliya iyagoona madaxtooyada Soomaaliya horey uga ballan qaaday in aysan culays ay la kulmi doonin haddii arrinkan dhacdo waxay u muuqanaysaa in madaxda maamul goboleedyada dalka qaarkood ay u muuqanayaan kuwa weli go'aamo adag ka qaadan doono xaaladda siyaasadeed ee dalka siyaasadda Soomaaliya ayaa hadda waxay u muuqanaysaa mid aad u adag iyadoona madaxda maamul goboleedyada culaysyo aad u xoogan ay la kulmayaan walow madaxda maamul goboleedyada gaar ahaan koonfur galbeed iyo galmudug horey loo sheegay in ay kamid yihiin kooxda Farmaajo isla markaana shirka ay Farmaajo ay ku matalayaan Farmaajo iyo kooxdiisa ayaa waxay u muuqanayaan in ay doonayaan inay guulo waaweyn ay gaaraan hase ahaatee guulaha ay gaarayaan ayaa waxay tahay in shirka weli go'aamo adag ay ka soo bixi doonaan haddii shirka go'aamada qaar ay ka soo baxaan ay noqon doonaan kuwa ay si gaar ah kaga soo horjeedaan lafta gareen iyo sidoo kale Axmed Cabdikaari Qoorqoor waxaana labada madaxweyne ee maamul goboleedyada galmudug iyo koonfur galbeed Soomaaliya ay yihiin kuwa si cad u taageersan hogaamiyaha dalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo dhanka kalena daawadayaal waxaa laga cabsi qabaa in lagu laabto kuraasta qaar oo hadda la sheegay in la boobay kursiga Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa waxaa si gaar ah looga cabsi qabaa in dib loogu laabto maadaama ay eedeymo kala duwan kuraasta qaar ay horey uga imaadeen iyadoo cabashooyinka hadda jira u muuqanayso in mid la xalin doono haddana waxaa maalinba maalinta ka dambeysa shaki weyn uu galayaa kuraasta qaar tan iyo markii ay bilaabatay doorashada golaha shacabka waxaa guddiga xalinta khilaafaadka uu fadhigoodu yahay ay ku doodayaan in laba kursi ay fasaxeen waxaana
kuraasta ay fasaxeen kamid ah kursiga 239 kursigaasi oo hadda uu ku fadhiyo Mahdi Maxamed Guuleed Qadar. haddana fadeexad weyn ayaa ka dhalatay oo ku aadan dhanka qabiilaadka, waxaana taasi u muuqanaysa in culays aad u xoogan uu ka dhalanayo. kursiga ayaa Mahdi Maxamed Guuleed jufadiisa hoose waxay ahayd mid xoog ay ku qaadatay, waxaana la sheegay in uu hadda Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu talaabo adag uu qaadayo oo ku aadan kursigaasi. sidoo kale kursigaasi ayaa horey waxa ugu fadhiyay xildhibaan Xuseen Carab Ciise, isagoona si cad u sheegay in dooda shirka mid aad loo baahan yahay in wax waliba laga hortago. si lamid ah waxaa guddiga xalinta khilaafaadka ay soo fasaxeen kursiga Hob 67 oo isna la sheegay in loo soo boobay taliyaha kumeel gaarka ah hay'adda NISA Yaasiin Cabdullaahi Farey, waxaana taasi u muuqanaysa in ay madaxda maamul goboleedyada qaar ay ku qanacsaneen in kuraasta qaar lagu laabto haddii la aqbalo in la burburiyo dhammaanba go'aamadii oo horey u gaareen guddiga xalinta khilaafaadka oo la aqbalo dalabka mucaaradka kursiga Hob 239 iyo Hob 67. labadaasi waxay wajahaysaa ku laabasho. lama hubo in maamulada ay wada aqbali doonaan kuraasta in lagu laabto, haddana waxaa weli mucaaradku ay yihiin kuwa ay aad uga soo horjeedaan wax waliba oo ku aadan xaaladaha siyaasadeed ee dalka ka jira. maalinba maalinta ka dambeysa siyaasadda Soomaaliya ayaa waxay u muuqanaysaa mid aad u adag, iyadoona madaxda maamul goboleedyada qaar ay ka mabda' duwan yihiin madaxda maamulada Galmudug iyo sidoo kale Koonfur Galbeed Soomaaliya oo taageero cad u muujinaya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo maadaama ay hoos tagaan filla Soomaaliya. dhanka kalena saraakiisha lagu tuhunsanaa weerarkii lagu qaaday xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ayaa gebi ahaanba loo yeeray. wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya ayaa qoraal u diray taliyaha ciidanka xoogga dalka, waxa uu kaga dalbaday in loo yeero ilaa 5 sargaal oo ciidanka lagu tuhunsan yahay dhacdadii 27 Diseembar ee ahayd in isku day afgembi lagula wareega xafiiska Ra'iisul Wasaaraha, iyadoona saraakiishaasi waxaa ku jira taliyaha guutada 17aad iyo abaanduulaha guutada Koofiya Casta ilaalada madaxtooyada. guddiga baaritaanada ayaa waxay wadaan su'aalo weydiinta iyo xog ururinta la xiriirta qaabkii waxay u dhaceen iyo cidda sida gaarka ah uga dambeysay. taliyaha xoogga ayaa laga codsaday in saraakiishaasi in ay maalinta Sabtida ah taariikhdu ay ku beegantahay 8 Janaayo saacadana ay tahay 10 barqanimo ay yimaadaan xafiiska wasiir dowlaha iyo xafiiska Ra'iisul Wasaaraha si ay ula kulmaan guddiga oo magacaabay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble. waxaana ay hadda saraakiishaasi kamid ah gaashaanle sare Xasan Dhicis taliyaha guutada 77aad, gaashaanle Shaafici Nuur Axmed abaanduulaha guutada 77aad, gaashaanle dhexe Cabdi Yaasiin Cali Kooshin taliyaha ururka 6aad ee guutada 77aad, gaashaanle Xasan Duwane Cumar Cabdullaahi ururka 6aad, laba xidigle Muuse Maxamed Cadow Sharib taliyaha kooxda horinta gurmadka ee ururka 6aad. waxaana tani u muuqanaysaa in dhabarjab xoogan ay ku noqonayso kooxda Farmaajo maadaama rajooyin wanaagsan ay ka lahaayeen oo ku aadan sidii ay usii laba jibaari laayeen wax waliba oo ku aadan arrimaha doorashooyinka. haddana hadda caqabadaha soo kordhay ayaa waxay u muuqanayaan kuwa culayska kusii badinaya kooxda aaminsan Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. filla Soomaaliya ayaa ciriiri siyaasadeed ka jira, iyadoona qof waliba ay la socoto waxyaabaha waqtiga kan xaadirka ah ka jira filla Soomaaliya. guud ahaan daawadayaal warkii oo aad ka daawanayseen runta wararka daawadayaal waa nageynta. haddaba daawada haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saaro, like dheh, share gareey wararkeena, commentina noo reeb. waadna ku mahadsantihiin daawashada warka janaalkeena runta wararka.